Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Dunidan casriga ah ee hadda lagu jiro ee 2025 ay gabagabada tahay. Haddaanad ka faa'iideysanaynin iyada jira oo aanad wax ku baranaynin ama aanad isticmaalaynin, waad hadhi doontaa run ahaantii. Marka maanta waxaan idiin wadaa aalad lagu magacaabo NotebookLM. So Google-ka markaad tagto waxaad ku dhufanaysaa waxaad ku qori doontaa NotebookLM ayaad ku qori doontaa. Markaad NotebookLM aad qorto aad searching garayso Google-ku markuu saa yahay aad searching ku dhufato linkigan koowaad baa raaciyood ku dhufan marka linkiga koowaad ayaad ku dhufanaysaa. Markaad ku dhufato interface noocan ayaa kuu soo bixi doona. Application uu leeyahay oo mobile application oo la soo degi kartaa. Hadda qaabkan uu egyahay NotebookLM waxaad soo gelin kartaa multiple sources ama PDF yo kala duwan ayaad gelin kartaa. Waxaad kaloo samayn kartaa notes baad create garaysan kartaa study guide hadday tahay traffic sources kombu inta badan isagu wax ka soo qaatay kaligiis kama generate garaysto ama NotebookLM qaabkaas uu shaqeeyo. Marka interface-kiisa marka wadax ku dhufanay try NotebookLM ayaad ku dhufan doontaa. Wuxuu ku keeni markaa application-ka si good interface-kiisa good. Hadda kor aniga waan tijaabiyey oo dhowr mar baan isku dayay oo tijaabiyey dhowr wax baan u isticmaalay waana ii anfacay run ahaantii. Marka waxaan isdhiina waxa fiicnaan lahayd inaad la wadaagto dadka iyaga sida ay uga faa'iideystaan ama arday ahaado ama macallin ahaado qaabkiisna uga faa'iideysan karaa oo aaladan u isticmaali karaa. Marka view-giisa qaabkaas aad u samayn kartaa anuu inta badan grid-ka qaybtan waaweyn yahay listiga majali ayaan ka dhigtaa. Marka tan aad ku dhufanaysaa create new note ama create new note halkaas aad ku dhufan kartaa. Tan waxa kuu soo bixi doona pop up ama window noocan ah PDF baad soo gelin kartaa. Waxa kaloo samayn kartaa inaad ku soo dari karto Google oo aad isticmaali karto Google-kaad wax ka soo gelin karto link inaad ku soo dari karto linki ku paste garayso kadibna aad isticmaali karto best text baad soo gelin kartaa upload. Marka kan upload documentigan aad isticmaalina click aynu ilaahno waxaan soo download gareeyay social science grade 8 ka dalkan Ethiopia. Markaad ku upload garayso waxaan oranaa open baan bal si aynu iskula fahanno ilmaha yar sideedaadka ah sidoo isticmaali karaa aaladan isagoo uga faa'iideysanaya qaab fahansiinayo kale. Marka interface-ku saddex nooc buu kala baxay. Qaybtan waa sources-ka PDF-ka linkiga YouTube-ka waxa dhan ayaad markaad kaga soo dari kartaa qaybtan. Add source wadaad tiraahdo aad ku soo dari kartaa qaybtan markaa. Qaybta markuu ugu soo baxo marka koowaad bay isaga summary yar buu ku siin doonaa. Summary-ga yari waa summary yar oo ka hadlaya source-gan aad soo gelis. Hadda waa maxay grade 8 text grade 8 social studies oo notebook wax ku siinaya maxay summary yar oo kooban. Bartan waxbaad ka weydiin kartaa oo waa chatbot-kii ku xidhnaa isaga. Marka waxbaad weydiin kartaa what the first unit man let's say for example waxaan weydiinaynaa what is the first unit is all about. Unitka koowaad wuxuu ku saabsan yahay oo kale ayaan weydiinaynaa. Waxayna siin doonaa note yar oo kooban oo ku saabsan unitka koowaad ayuu ina siin doonaa. Wuxuuna yidhi unitka koowaadi waa physical characteristics of the earth. Marka waa maxay uu noo sheegi doonaa waliba source-ga uu ka keenay iyo barta uu ka soo qaadanayo ayuu inoo sheegayaa oo PDF-kan ku soo upload gareynay bartay kaga jiraan ayaa uu ku sheegayaa. Waxaad weydiin kartaa su'aalo kale oo adiga markaa aad rabto inaad weydiiso. Waxaad markaa halkan uga dan leenahay waa kuwan marka qaybta midigta ayaynu uga dan leenahay oo ay ka koobtay audio overview inaad diyaari ka soo saaran karto audio macnaha waxa weeye maqal ama dhegeysi iyadoo la sharaxayo buugga si guud nuxur yar oo kooban oo laba qofi ay ku wada hadlayaan ama hal qofi uu ku sharaxayo iyo dhegeysan kartaa. Waliba ardayda waxaan faa'iideeyaa xilliyada aad shaqada ku jirtaan xilliyada aad isleedahay ama aad seexanayso kale ama xilliyada inta badan aad iska firaaqada tahay meelaha iska soo socoto waa dhegeysan kartaa. Still adoo wadada socdana waxaad baran kartaa oo dhegeysan kartaa. Generating video markaa audio-hii ayuu noo generate gareynaya. Hadda waa kan tusaale ahaan audio-hii noo generate gareeyay bal aynu isla maqalno play button-ka yar baa ku dhufan. Markaan ku dhufanno play baan siinaynaa waan dhageysanaynaa marka wuxuu yidhaa waa 12
waa 13 daqiiqo oo awriye ah. Faulting, volcanoes, earthquakes, all the really big stuff. It's the movement. Welcome back to the deep dive. Today we're doing something Play markaan siino waa si fiican baad kolley u maqashaan. our listener passive one. We are diving headfirst and pulling out the stuff that actually matters, the key concepts, the surprising facts, the things that will stick. Exactly. We're synthesizing it all. Welcome back to the deep dive. Today Marka si guud baad dhegaysan kartaa. Labaadna markaa waxaynu kaga hadli doonaa ama aan ku discuss garayn doonaa kuna fahansiin doonaa waa qaybta video overview-ga la yidhaahdo. Macnaha inaad samaysan karto video gaaban kaasoo ku anfacaya inaad wax badan ka fahanto waxa aad baranaysa. Videoga markuu kuu generate gareeyo waa video in detail ah oo si fiican kuugu sharaxaya waxa aad ku baranayso ama PDF-ka aad ku upload garaysay ama aad soo gelisay aaladan NotebookLM ee Google ay iska leedahay. Kadib sharaxaad guud baad ka heli, wax badanna waad ka fahmi doontaa insha Allah hadduu la yidhaahdo. Marka waa aalad aad u wanaagsan arday kasta iyo qof kastoo macallin ama qof kastoo raba inuu xirfad cusub bartana aad u anfacaysa. Videoga intuu generate garaynaya baynu sugi, kadib baynu isku soo laaban insha Allah hadduu la yidhaahdo. Kan videogii noo generate gareeyay bal halka play button-ka ayaynu ku dhufanaynaa. Kadib markaad play button-ka ku dhufato videoga ayaa ku soo bixi doona. Hadda waad sidaad aragtaan Ethiopian Social Studies waa ku qoran ama Grade 8 Social Studies. Videogan markaa dhererkiisu waa ilaa 7 daqiiqo waad daawan kartaa. Aaladda dhexdeedana waad ku daawan kartaa haddii aad rabto. Waxa kaloo inta badan uu ku tusayaa illustrations ama sawirro aad ku fahansiinaya. Halka haddaad ku dhufatan waa aad weyneyn kartaa oo wuxuu ku tusi doonaa full screen baad ka dhigan kartaa macnaha. Hadda iminka physical characteristics weliba internalkii siduu kugu kala dhigdhigayo waa aragtaan iyo externalkii labadaba. Aad buu anfacaya run ahaantii ardaydu inay ka faa'iidaystaanna waan jeclaan lahaa. Kolley way wanaagsan tahay wixii wanaagsan oo dhan la isla wadaago ama wixii lagu caawin karo qofka walaalkaa inaad ku caawiso way wanaagsan tahay. Marka aaladan aad buu fiican tahay fadlan ha laga faa'iidaysto. Haddaba videogan si aad u download garaysanaysaa waxaad ku dhufanaysaa barta yare download button-ku ku qoran yahay ayaad ku dhufan then ama computerkaaga ama taleefankaaga aad u haysato midka doonto ayaad ku download garaysan kartaa. Videogaasina sidaas ayaa kuugu save garaysmi doonaa kuugu gali doonaa. Qaybta xigta marka waxaan ku laabanaa studio-ga ama qaybteennii studio-ga marka mind mapska iyo report-ka marka aan ka hadlaynaa flashcard see loo sameeyaa. Flashcard-isku wax kale maahan waxa weeyaan note yar oo kooban oo hal line ama 2 line ah kaasoo ku xasuusinaya information fara badan oo ku jira waxa aad baranaysay. Marka flashcards ayaa aad generate garaysan kartaa ama aad soo saaran kartaa. Hadda waa kan flashcard-igi markaan click ku siiyo flashcard-iga noo generate gareeyay ama uu na siiyey type of force comes inside of the earth waad dhaafi kartaa dib baad u soo noqon kartaa haddii aad macnaha wuxuu ka xasuusinaya dhammaan wixii ku saabsanaa. Haddaad garan weyso si answer baad ku dhufan kartaa macnaha waxaanaad fahmi weydo wuxuu ka hadlayaa internal or titanic force. Weli haddaanad sii fahmin explain baad ku dhufan kartaa kadib waxa uu kuu sharixi markaad click explain tiraahdo waxa uu kuu sharixi chatbot-ku ama AI wuxuu ku sharixi doonaa waxa uu nula jeedo ama si waxa ay kala yihiin waxa uu yahay baan u jeedaa internal or titanic forces waxa uu yahay buu markaa kuu sharixi doonaa. Marka si deeply baad wax ugu baran kartaa adigoo waqti badan uusan kaaga baxaynin inaad kolba dhinac buugga aad ka rogto adigoo isticmaalaya aaladan. Marka sourceski waxa taa ku tusaya meesha uu ka keenayo social studies iminka grade 8 summary-ga halkuu ka keenayo then flashcard-iska adoo adeegsanaya ayaad isticmaali kartaa. Qaybta afraad baan u jeedaa. Qaybta afraad waxa markaa aad ku baran doontaa inaad istixaanto waana qaybtaasi quiz-ka loo yaqaano. Marka qaybta quiz-ka markaad tagto ku dul dhufato quiz wuxuu kuu diyaarin doonaa imtixaan yar oo kooban kaasoo uu kaa qaadayo isagoo kaa qaaday. Imtixaanka yar ee kooban ee uu kaa qaadayay wuxuu ka koobnaan doonaa aduu number yar almost waxaan u maleynayaa 15 marka su-aasha koowaad ku weydiiyo let's say for example aniga isku dayaya bal waxaan isku day inaan qaldo su-aasha markaan qaldo kadib bal jawaabtu ii sheegay haddana wuxuu tusi doonaa inay jawaabta saxda ahna bii tusi una ii explain gareen. Hadda volcanic baan doortay let's say for example volcanic markaan doortay su-aashii waan qaldo folding bay ahayd waa the process marka uu ii sharixi karaa oo wuxuu odhan karaa jawaabtu saanay ku tahay. Marka haddaan ku dhufto iminka explain
wii sharaxi why this is the right answer tani maxay ku noqotay su'aasha saxda halka ay ka timiday buuggaaga barta ay kaga jirto iyo sharaxaadii guudba halkaasaad markaa sourcigana aad kasii raaci kartaa marka aaladda waa aalad aad u fiican ee in laga faa'iidaystana ay mudan tahay next baan odhan su'aasha labaad baan dul tegi su'aashaasaan kasii shaqayn tii koowaan kusoo laaban karaa ta kale marka self quiz baan xataa sii samayn karaa oo chapter kastoo la ii dhigo inaan anigu istixaami karo ama buugga dhanba imtixaan waxaan iskaga qaadi karo anoo adeegsanaya aaladdan anoo adeegsanaya marka aaladdan aad bay u fiican tahay run ahaantii in laga faa'iidaysto qaybta u dambeysa waxaa laga yaabaa inaad istiraahdo okay anigu waxay ku adag luqadda ingiriiska marka sentence full ah ma qori karo soomaali xataa waa ku fahmaya af soomaaligeena caadiga aad kula hadli kartaa ood odhan kartaa xagga ka wada iminka waxaan odhan karaa fadlan soomaali let's say for example waxaan ku qori fadlan af soomaali iigu sharax enter baan siin kadibna wuxuu ii soo saari doonaa isagoo soomaali iigu sharaxaya ama af soomaali aan fahmi karo ku sharaxaya maadaamuu AI-gu isticmaalayo Google API-giisa luuqadaha iminka waa kan toos buu iigu sharaxaya waa social studies textbook for grade 8 weeyi luuqadda ingiriisku ku qoran yahay buu ku odhan laakiin waan isku day inaan soomaali aan ku sharaxo hadda waxaan weydiin waxaad ii fahansiisaa ama si fiican waxaad ii fahansiisaa physical characteristics of the earth ama muuqaalka duleed ee dhulka ifahansii bal chapterkan waxaa ka hadlayo si soomaaliyeysan oo af soomaaliyeed kula hadlayso ifahansii weliba waxaad ii fahansiisaa sidii ilmo yar oo grade 5 ah baan odhanaynaa grade 1 ah baan nidhaahno let's say grade 1 ah klaaska koowaad ku jira kadib wuxuu isku day markaa inuu kuu sharaxo oo si fiican kuugu kala dhigdhigo soomaali buu kuugu sharax soomaalina waad akhrisan kartaa waa aad fahmi si fiicanna markaa waad u fahmi doontaa adigoo labadii luuqadood ba isticmaalaya luuqadda Ethiopia medium of educationka ama medium of instructionka ee Englishka ee dalkeena loo isticmaalo in wax lagu baro dadka Englishka iyo Soomaaligiiba labadaba dhinacba labada dhanba markaa waad adeegsan kartaa si fiicanna waad u fahmi kartaa Soomaaliga aad iska isticmaali kartaa laakiin waxaa aad inta badan u fiican si luuqadaada ay u dhisanto inaad had iyo jeer aad ku sharaxaad guud buu kaaga bixinayaa waxyaabaha ama qaybaha waxyaabaha qaabeeyay iminka dhulkoo kale forces shaping the earth surface-kii innerkii outerkii bixii oo dhan buu hadda kuu sheegay weliba tusaalooyin ayuu inta badan kuu siinay iminka fuuqlayn volcanism hadda ereygaasani inta badan fuuqlayn oo kale waa erey aad u fiican erey bixintiisu xataa weyn ma xuma marka ka faa'iidaystaan dhan lahaa wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu intaan ku kulmi doono muuqaalkan oo kale ah waxaan jeclaan lahaa inaan kusoo gudbiyo codsi horta ka yimiday buu ahaa arday aan aniga wax u dhigo oo inta badan iga codsatay inaan hal muuqaal uga sameeyo iyaga aan la wadaago si privately ah kadibna ay isticmaalaan aaladahan AI-ga si ay waxbarashadooda u horumariyaan laakiin tii way kasoo gudubtay hadda waxay noqotay inaan si officially aan u baahiyo muuqaalada marka bartan YouTube-ka ayaan soo gelin doonaa muuqaalada inta badan AI-ga educationka ma waxbarashada markay noqoto cilmi baarisyada iyo researchka sida loo qoro waxyaabahaas oo dhan bartan ayaan soo gelin doonaa marka inaad la socoto aad bay muhiim u tahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu